neefta qofka ama afkiisa inuu uro waa xaalad sababi karta qofka in ay dhibsato bulshada u dhow ee mar walba la macaamisho. sidaas darteed waxaan halkan ku soo koobaynaa waxyaabaha ugu badan ee sababa af urka ama in qofka neeftiisa ay urto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنالك الدكتور أحمد يوسف كتخصصي عذرات الجود في مرينكا أما عذرات كل عفيرة. هدي الجنالك كعصوك فضلا سبسكرايب به سيادنا على صعود مروة بفضلا ريح قبل الحب. ما أنت وحكى هذي دونا وحيابها سوى أفقرك أما نافت قفك إني أرتو neefta qofka ama afkiisa inuu uro waa xaalad sababi karta qofka in ay dhibsato bulshada u dhow ee mar walba la macaamisho. sidoo kale haddii uu qofka muddo dheer uu leeyahay neefta in ay urto ama afka qofka inuu uro waa calaamad tilmaamaysa qofkaas inuu qabo cudur ka mid ah cudurrada raago. badanaa dadka neeftooda ay urta ama afkooda uu uro way ku baraarugsan yihiin wayna og yihiin waxayna ku abuurtaa niyad xumo iyo walwal maadaama mar walba uu hadlo qofka uu dareemayo neeftiisa in la dhibsanayo. sidoo kale dadka xaaladdan ku sugan waxay juhdi badan ku bixiyaan siday ku ogaan lahaayeen waxyaabaha ku keeni kara neeftooda inay urto. sidaas darteed maadaama ay caafimaad aqoonin dadkaas ama aysan aqoon badan u lahayn waxaa laga yaabaa in loo sheego waxyaabo badan oo qalad ah oona ku salaysnayn cilmi, sidaas darteedna ay aaminaan oo qofkii dhaawacyo ama dhibaatooyin caafimaad oo horle uu isku geysto. sidaas darteed waxaan halkan ku soo koobaynaa waxyaabaha ugu badan ee sababa af urka ama in qofka neeftiisa ay urto. af urka ama neefta qofka inay urto waxyaabaha sababi kara waxaa ugu weyn qaab nololeedka qofka ama qaabka uu u nool yahay qofka maalin walba iyo waxyaabaha uu isticmaalo maalin walba. sidoo kale waxyaabaha sababa af urka way badan yihiin laakiin waxaan u kala qaadaynaa ilaa iyo 7 qaybood. 7daas qayboodna qayb walba waxaan uga hadli doonaa si gaar ah. qaybta koowaad, cuntooyinka ugu badan ee sababi kara qofka neeftiisa ama afkiisa in ay urto. cuntooyinka saameynta weyn ku leh neefta afkana ku raagi kara waqti dheer ama muddo dheer waxaa ka mid ah tuunta iyo basasha. haddii uu qofka isticmaalka tuunta iyo basasha ay aad ugu badan tahay waxaa suuragal ah qofkii inay si fudud afkiisa uga go'in, sidaas darteedna ay saameyn weyn ku yeelato qofka neefsigiisa. cuntooyinka qofka ilkaha iyo goosaha ka geli karo waqti dheerna ku raagi karo sida hilibka oo kale waxay sababi karaan qofka in uu neeftiisa iyo afkiisa sida uu u soo uraayo markaas in ay isbedelaan, qofkiina in uu yeesho neef aad u ur badan inuu yeesho haddii uu ku raago markaas hilibka muddo dheer afka. waxaana jiro dadka badanaa goosaha duleelo badan ay leeyihiin iyo meelo badan ay ku raagi karaan hilibka. waxaa sidoo kaleeto cuntooyinka ayadana ka mid ah oo qofka saameyn weyn ku yeelanaysa afkiisa in uu aad u markaas aysan uga go'in waxyaabaha qaar cabista kafeyga, sidaas darteedna ay markaas qofkii sahlanaata afkiisii iyo neeftiisa in ay mar walba urto haddii uu waqti badan ka soo wareego. qaybta labaad, isticmaalka tubaakada. qofka tubaakada wuxuu u isticmaali karaa siyaabo badan in uu si toos ah qofka tubaakada u cuno, sidoo kale in uu qaab sigaar ahaana uu u cabo. intaasba waxaa waaye qofka carabkiisa iyo ilkiisa saameynay ku yeelanaysaa sababtoo kiimikaaliska ay ka kooban tahay tubaakada waxay si adag ugu dhigtaa afka waqti dheerna ay ku raagtaa waxayna ka qayb qaadanaysaa qofka afkiisa in uu uro sababtoo kiimikaalis aad u xoog badan ayay ka kooban tahay tubaakada. caafimaadkana guud ahaan uma fiicna, sidaas darteed waxaa wanaagsan qofka haddii uu isticmaalo tubaakada ama ha u isticmaalo qaab sigaar ah ha u isticmaalo ama qaab shiishad ah ha u isticmaalo ama qaab toos ah ha u isticmaalo inuu iska dhaafo maadaama ay sababi karaan dhibaatooyinka qofka uu ka filayo dhibaatooyin ka badan. qaybta saddexaad, nadaafadda afka oo aad u liidato. haddii uu qofka si joogto ah u nadiifiyo ilkihiisa mar walbeeto uu cuno kadib ama mar walba uu wax cabo badanaa ma dareemayo waxyaabaha markaas cunooyinka ka haray ama cabitaanada ka haray inay afkiisa ku sababaan in uu markaas uu sameeyo ur ama sidoo kale in neeftiisa qofka ay isbedesho sida caadiga ay ahayd. haddii laakiin uu qofka fulin waayo oo mar walbeeto uu wax cuno haddana uu qofka uusan nadiifin afkii waxaa ka dhalanaysa meeshaas in cunooyinkii iyo cabitaanadii waxyaabo ka haray oo afka ku haray sidoo kalena carabka ku haray
in ay meeshii ku qurmaan. markii ay ku qurmaanna afkii gudihiisa markaas ay ku urto bakteeriyana ay ku dhalato, sidaasna ay markaas qofka ay u sii ziyaado xaaladiisa af urka ama in neeftiisa ay aad u sii urto. haddii uu qofka marka mar walbeeto uu cunno ama cabitaan cabo inuu cadaysan uu caadaysto uu waqti dheerna sidaas ku wado, waxaa ku dhalanaya ilkihiisa wax la dhaho taartaar ama dhagxaan wasaq ah. dhagxaantaasoo markaas ka imaatay cunnooyinkii cabitaanada qofka uu cabaayay, sidoo kalena ah wasaq ilkihii ku dhegtay. waxaana markaas sahlanaanaysa qofkii ciridkiisa inuu mar walba si fudud uu u jirado, qofkiina mar walba inuu afkiisa dhaawacan yahay ama dhiig uu ka socdo, sidoo kalena afkiisa in aan loo dhowaa karin qofka uu mar walbeeta aad uu markaas afkii u qurmaayo. qaybta afaraad, oonka faraha badan ama afqaleelka. candhuufta waxay nadiifisaa wasaqda afka, sidaas darteed haddii ay yaraato candhuufta uu qofka afkiisa qallalan yahay, waxaa yaraanaya nadaafadda afka, sidaas darteed neefta qofka way uraysaa. afqaleelka caadiga ah waa kan subaxii qofka marka uu hurdada ka soo kaco lagu arko, oona leh asagana neefta qofka in ay markaas ay urayso, sababtoo ah qofka inta uu jiifo candhuuf badan ma la soo saaro. marka inuu qofka subaxii marka uu soo kaco neeftiisa ay isbedesho ama afkiisa markaas inuu sameeyo ur, wax caadiya waaye, wax dhibla ma ahan. laakiin waxaa problem weyn ah qofkii inuu nadiifinin marka uu soo kaco kadib uu sidaas magaalkiisa ku galo, cunno ku sii cuno, uuna caado ka dhigto. sidaa u jeedaan, maadaama afqaleelka iyo oonka faraha badan ay saameyn weyn ku leedahay afka iyo neefta markaas in ay urto, waxaa mar walba muhiim ah qofka inuu isku dayo inuu biyo fiican cabo, afkiisana mar walba uu qoyaan ahaado, maadaama bakteeriyada badanaa afka soo gashay ay candhuufta disho. qaybta shanaad, caabuqa afka ama afkii inuu bukado. qofka haddii afkiisa qalliin lagu sameeyo ama uu dhaawacmo ama ilka laga saaro ama uu leeyahay suus, sidoo kale dulduleelo wasaqda cuntada ceshan karo, waxaa si fudud ugu dhici kara caabuqa afka. waxaana lagu arki karaa afka qofka inuu si zaa'ida uu u uro, sidoo kale in dheecaamo fara badan afkiisa ka socda la arko oo aadna u qurmaya. sidoo kale caabuqa ku dhaco ciridka iyo dhunta wuxuu sababi karaa neefta qofka in ay urto. caabuqyada kale ee sababi kara afka inuu qurmo waxaa ka mid ah qunka, ama qofka in ay qanjiradiisa qunka ee aad ay u xanuunsadaan, markaasna ay meeshii qanjirada ay ka buuxsamaan maal aad u fara badan, waxaana ku samaysmaya dhagxaan aad u yaryar. dhagxaantaasoo aad u qurmaya waxayna sababi karaan qofka afkiisa zaa'id inuu u uro, sidoo kalena saameyn weyn waxay ku yeelanaysaa neefta qofka. waxaa sidoo kale sababi kara afka inuu zaa'id u uro caabuqyada ku dhaco sanka iyo duleelada ku hareeraysan sanka. qaybta lixaad, cudurrada ku dhaco neefmareenka iyo caloosha ayagana waxay sababi karaan af urka. cudurrada ku dhaco neefmareenka ee badanaa keeno inuu afka uro qofka waxaa ka mid ah inuu qofka qabo kansar, sidoo kale inuu qabo oof-wareen ama caabuqa ku dhaco sanbabka ama caabuqa loo yaqaano niyumoniyada. sidoo kale waxaa keeni kara qofka neeftiisa in ay urto hergebka, sidoo kale boronkiitada, tiibishada ayadana qofka markaas neeftiisa waa la dareemi karaa in ay markaas ay urayso. sidoo kale qofka neeftiisa waxay urtaa marka uu xabadkiisa maal ay ku jirto ama uu qabo cudur la yidhaahdo lung abscess. cudurrada ku dhaco dheefshiidka ee sababi kara neefta qofka inay urto ayadana waxaa ka mid ah laabjeexa, kansarka caloosha, sidoo kale mariinka cuntada qofka in ay yeelato godad cuntada ay ku harto oo cunnada markaa ay ku jirto muddo dheer, loo yaqaano diverticular, in ay ku samaysmaan marinka cuntada. qofkii waxaa laga yaabaa in markaa ay cunnadii meesha ku ceshoonto, waqti dheerna ay ku jirto, meeshiina ku qurunto cunnadii. marka ay meesha ku qurunto kadibna hadhow qofka mar walbuu neefsanaya ama mar walbuu la ag jooga in la dareemo in qofkii aad ay neeftiisa u urayso. waxaa kaloo jiro cudurro kale oo ku dhaco beerka iyo dheefshiidka, kuwaasoo ayagana keeni karo, laakiin kuwoodii ugu badnaa waan soo xusnay. qaybta toddobaad, isticmaalka daawooyinka qaarkood. aad dhowr jeer waa uga digna fiidiyoyadii hore lasoo dhaafay qofka in uusan iska isticmaalin daawooyin aan dhakhtar soo qorin. sidaas darteed haddeertaan waxaa la mida daawooyin waxaa jira kaalmeynaya qofkii in afkiisa ama neeftiisa ay aad u urto, kuwaasoo sababaya mar walba in qofka afqaleel uu ku dhaco. waana ogtihiin afqaleelka inuu sababi karo afka qofka inuu uro. daawooyinka badanaa ku sababi kara qofka afkiisa inay qallalaan waxaa ka mid ah daawooyinka loo isticmaalo xasaasiyadda. marka badanaa iska ilaali daawooyin aan dhakhtar kuu qorin.
haddii aad si fudud adiga iskaga isticmaasho waxaa laga yaabaa xaaladii oo markaas ku jira qofka in ay uga sii darayso daawada. waxaa la rabaa wax walba aad samaynaysid inaad u adeegsatid qof aqoon u leh, maadaama waxa aad la tacaalaysid markaas ay tahay naftaada. waxaa fiican inaada ku ciyaarin oo qof aqoon u leh aa u dhiibtid. intaas waa xaaladaha sababi kara neefta qofka in ay urto. waxaan fiidiyowga soo socda uga hadli doonaa siyaabaha loo daweyn kara neefta qofka inay urto insha Allah. intaas waa talo caafimaad. wax walba si aad u qabatid waxaad u baahan tahay inaad ku baraarugsan tahay, og tahay. sidaas darteed waxaan mar walba idinla garab taagannahay inaan idin siino talooyin caafimaad ugu wanaagsan oo la hubo, kuna salaysan aqoon la xaqiijiyey, qof walbana uu heli karo. waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iideen fiidiyowgan. insha Allah usbuuc walba waxaan soo dhigi doonaa 3 fiidiyo oo muhiim ah. haddii aysan jirin duruufo markaas, wixii talo iyo tusaale ah fadlan inoogu soo dir commentiga. sidoo kale noogu soo dir commentiga mawduuca aad doonaysa in laga soo hadlo. si aad mar walba noola socotid fadlan subscribe saar. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalayaal. waa inoo mar kale iyo fiidiyo kale insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.